أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halka waxa ka hadlaysay Ifraac Cadare waxa la hadlayaa dhammaan dadkeena oo dhan meel kasto ay joogaan waxaan halkan u soo galay in yaro quick inaad la hadlo oo aan bal waxyaabahan dhacaya aan anigana aan partkayga ka qaato waxaan ahay nurse registered nurse London waxaan ka shaqeeyaa area-da maaragtay West London waxaan yar jeclaystay inaan wax yar aan ka hadlo oo aan idin weydiiyo aan idin sheego waxyaabaha socda confusion badan oo jira oo lot information socota qof kastana ma aragtay de maxaan idhahdayay it's not good inaan information kasta qaadano wax kasta qaadano wax dad badan oo ka dhigay maaragtay waxaan ciyaar inay tahay ama video ka sameeyay haddaad YouTube tahay ama dad ku ciyaaraya waxa kaliya idin soo sheegaya inay waxaan ay tahay very serious qofku hadii aad maaragtay islaam baa nahay dad islaam baynu nahay ku noqo waxa weeyaan diintii islaamka ku noqo yani wadnahaaga ayaa damqanaya waxyaabaha qaarkood markaad aragto dadka waxana weligeeda la heed may dhicin ilaa waxaan jecelahay la dagaalkii labaad ee adduunyada sidan dadku ay kala yihiin qof kastaba qofkiisa kala ka cararayo may dhicin laakiin waxaad moodaa qof kastaba inay yawmal qiyaamihii kale ay haysato taasi markaan ka hadlo waxaan leeyahay diinta islaamku waxa weeyaan waa discipline waxa weeyaan waa wax wanaagsan waa wax aad iyo aad u wanaagsan markasta markaad eegto hareerahaaga ama waxaad arkayso markasta waa come back to the Islam I hope qofka ma aragtay inaan isku soo dhawaano inay jacayl badan inoo abuurayso ina kalgacal badan ay arrimahan imika dhacaya inoo abuuraya inaan isku naxariisano dadka jilicda sanne dadka ducafada dadkan waxba haysanin inay tahay wake up call inay tahay baan u malaynayaa aniga sidaan arkayo inaan isjeclaano inaan isku soo dhawaano ilaahay naga saaro maaragtay cudfigii iyo qabiilkii iyo dhibkii ina haystay oo qof kastaba malaha oran doona waariyaan kugu soo dhicin xanuunkay maaragtay COVID-19 yaanu inagu soo noqonine inaga daaya qabiilka oo inaga daaya maaragtay waxyaabaha aad haam garanaysaan naftiina ku sameeynaysan qof kastaba uu qofka kale uu malaha uu ku soo dhawaan doono almuhiim waqti badan ma haysto goordhow baan shaqo tagayaa waqtiguna wuu iska adag yahay so waxaan jeclaystay anigana intii aan ama experience aan u lahaa ama waxaan arkaya ishaydu ay arkayso inaan wixii sheego always waxaan la baraa training nala siinay la yiraahdo be strong noqo be kind laakiin be strong noqo adiga waxaan iyana ku effect garaynin baan sameysana trainno aan of human being baan ahay waad jilci kartaa waad damqan kartaa laakiin haddana waxaan la siiyaa protective badan oo inaanu ma aragtay nafteeda ilaalino because hadii qof kastaba aad u oydo oo qof kastaba aad wax u samayso waxa weyn adigiina meeshii waad ka baxaysaayo marka cid meeshii dadkii ilaalinaysa ma jirto waxa kaliya tahay aan raba ugu horeeya inaadin NHS-ta website-deeda la socotaan oo aydan newsyo badan iyo waxyaabo badan iyo dad badan aydan dhageysan ama qof ma aragtay pharmacy qof doctor qof ma aragtay يعني healthy area ka shaqeeya oo ma aragtay wixii experience leh waayo meel kasta lagama hadli karo waxyaabo badan oo ku xidhaya ayaa jira waxyaabo ogahayo confidentiality baa jira waxyaabo badan oo sirahoo laygu aaminay baa jira mar kasta iskama hadli kartid order iskama sameyn kartid every time waxaan sameynaa training every time waxaan sameynaa website baan gelaynaa waxyaabihii baan aan ka hadlaynaa ama naloo sheegaya 24 hours marka qofka website-ka la socda ama NHS-ta la socda waa lagu sheegaya dad badan baa cabanaya oo leh ama la imanayo ama aniga Soomaalinima laygu diidaya marka 99 ka garaaco 11 ka aan garaaco it's not all that waxyaabo badan baa jira qofna lama diiday laakiin dadkan waa dad training la siiyay waa dad liista haysta waa dad le yani qofku hadii uu xumad saasa uu yahay uu 39 uu dhaafay waa in la soo qaado especially dadka asmada leh dadka ma aragtay uu ma aragtay hargabkan waxan infection kan wuxuu dadka taabanaya langaha ayuu ma aragtay sambabada ayuu garaacaya oo uu ka dhigaya yani waxaan aanad maleynahay qof xanuunsanaya qof caafimaad qabaana isku mid maaha waxay sameynaysaa yani qofka markii aad isbedelaya jirkiisa baad arkaysaa caafimaadku isma qariyo
jirkiisi baad arkaysaa qofkiiba isbedelaya wejigiisi baad arkaysaa libkiisaas waxaad arkaysaa kalarkii bedelmay indhihiyo casaaday wejiga ayaan akrinaa we can read the bodyga anaga waxaana la baray sidaan jirka u akrino qofku inuu xanuunsanayo sida uu yahay inta uu cabayo waayo jirkan ilaahay uu dadka u siiyay dadku waxay u haystaan inuu strong yahayn ama aad awood leedahay laakiin awood ma haysano oo horena waanu sheegay dadka haddaad xitaa jeceshahay inaad qalbigaagu soo dego cisbitaalada iyo xabaalaha la eega baan oran jiray berigii hore laakiin imika seriously waxaad arkaysaa qofka xanuunsanaya levelka uu yahay marna waxaan record garaynaa intaasoo ma aragtay record baan leenahay qofkii wuxuu leeyahay xumad badan buu leeyahay ma neeftiibaa haysa ma kofigiisiibaa ayaa adag ma calooshaa socota waxyaabo badan buu qofku eegayaa ee iskama kaa ignore garanaya ambalanceka waxaa loo sheegay qof aada u xanuunsanaya oo ma aragtay u baahan especially oxygen u baahan waayo oxygentu waa very muhiim waa lifekii oo dhan oo imagine aanad breathe garayn karahayn ama aanad neefsan karahayn marka dad badan oo leh aniga ogaan baa layga tegay ama dadana saxaab nahay ama dad badan oo khalad u fahmay waan xanuunsanaya waa layga qaban waayey waa la cunsur waxaas ma jiraan laakiin qofkan waxbaa la baray waxa dadkii waxa la siiyay training cusub baa durtaba la siiyay waxa la yidhi qofkii hadduu sidaa yahay hal la keeno oo uu u baahan yahay naqaskii uu hayo oo uu u baahan yahay ma aragtay xumadiisa ay sareyso si loo siiyo treatment degdega ayaa loogu talagalay qofna lama necbo qofna lama xaasidayo qof kastaba xaq buu u leeyahay laakiin problemku wuu fara badan yahay se waxa fiican in qof kastaba uu qaybtiisa ka qaato in guriga marka la joogo guryaha markaan joogno idinkuna aad serious ka qaadataan oo qof reerka ka mid ihi uu reerka controlo oo la kala durko oo la yidhaahdo waxaa waa inaan cabno waxaa maaragtay sharaab badan waa in la cabo healthy food waa in la cuno waxaad ka codsanayaa healthy food inaa cuntaan because haddana waxa dhacaya qofkii waxa ku dhacaya haddii guryihii la isku xidhay haddii aad cunto culus cuntaan bariis iyo baasta qalad ma aha laakiin ha la yaraysto wax kastoo walbana middleku ku fiican yahay ma fiicna in la dhergo ood xoog u dheragto inaad hilib badan cuntaan inaad cunto badan la cuno haddana waxaa laga yaabaa diabetiskii baa jira waxaa laga yaabaa heart disease baa qofkii ku dhici kara jirkii ma shaqaynayo ma dhididayo gaadhan baynu leenahay gaadhanada aad u baxdaan kolba qofkiinu orod yar ku yar sameeyo oo yar rugcleeyo uu qofkii yar dhidido dhar adag intaad gashato idinka guriga dhexdiisii in qofkii la eego qofka markuu ku dhaco maqsin yaroo gaara loo eego loo sameeyo oo markaa qofka marka maqsinkaasi loo sameeyo wixiisii oo dhan loo wadageliyo galaafis yar hadduu haysto galaafiska waan ka hadli doonaayo khaladaad badan buu galay laakiin wixii uu u baahnaayo oo dhan la siiyo biyo yar koob yar uu ku cabo wixiisa weelkiisa gaar noqdo dharkiisa markuu iska bixiyo mashiinka degdeg loogu rido adigu haddaad dibadda ka timid ama aad dibadda kasoo shaqaynayso inaad dharkaaga aad bac qaado aad ku rido haddii kale mashiinka degdeg ugu rido adigoo reerka la hadal aan waxba samayn marka inaga laftigeenu guryaheena iyo inaynu caawino environmentka markaynu usoo baxno waa inaynu caawino because wixii wuu inaga yaraanaya imika waxaa la yidhi ilaa saddex week markaad joogtaba hala saxo wixii saddexdaa week maxaynu gaadhnay labadaa week maxaynu gaadhnay maxaynu achieve garaynay maxaynu ku fail garaynay maalin kastana la weydiiya every day kolkan qofka kale handoverka siinana waxaa la dhaha maxaan achieve garaynay maxaan samaynay maxaan gaadhnay haddana wixii baan bedelaynaa maxaa waxaasi khalad u noqday maxaa saasi noqday marka waxa weeyaan idinkana guryihiina waxaad samaysaan si wixii loola dagaalamo oo qofkii waxaa la yidhi ilaa uu xoog u xanuunsado lama gaxaynayo taasna way fiican tahay haddana waxaa la isku dhex darayaa maaragtay culturekii way fiican tahay diinteena islaamkii waa wax wanaagsan waxaa la isticmaalaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii uu isticmaali jiray toonti way fiican tahay hanigu wuu fiican yahay liindhanaantu way fiican tahay oo lod energy drink fara badan sida granbury juiceka laakiin sonkor badan buu leeyahay biyo badan layskaga daro way fiican tahay laakiin street garee iscaawi toonta cun wax kasta samee figista la yidhaahdo tiger ma aragtay orange qof walba qofka kale u mari oo dhabarka iska mari oo qoorta iska mariya yacni waad dhididaysaa xitaa waxa fiican biyo yaroo kulul oo aad isku huurisaan oo liindhanaan amaad ku tuujisaan amaad figista ku yar darto ood sidaa iskugu yar huuriso waxa fiican xariifin baynu ku nahay inagu dadkeena aad iyo aad baynu ugu wanaagsannahay waxyaabahaasi markaasi inaad guriga dhexdiisa isku train garayso waxa kaliyaan idinku advice garan lahaa xumadda bahasha yare xumada soo iibsada waayo waxa kale waa laga yaabaa inay idinku khalkhashaan haddaan idin idhaahdo iska eega maaragtay black pressureka soo iibsada taa kale soo iibsada waxa laga yaabaa dadka qaar stress bay ku ridaa laakiin xumadaadu haddii ay 37 waa yar soonahaasaad yar galaysaa annaga waxaan idhahnaa yellow waan isticmaalaa oo waxaan isticmaalaa caddaan waxaan isticmaalaa red imika red flaggi baa noo taagan waxaan haysanaa red flag
eeriyaha waxaanu ku jirnaa meelaha qaarkood soonuhu wuxuu marayaa red flag buu marayaa. red flag waxa weeyaan waa qofka halkii ugu dambeysay naqaskii uu kasoo bixi kari laayahay ay hawshii ku adag tahay oo uu ma aragtay marka uu samaynayo maxay hayday uu de naqaskii ku dhagan yahay. marka waxa weeyaan inuu hadli karahan qofkii waxyaabo badan oo touching aba socda cisbitaalada haddaad tagto qofkiisii aanu ma aragtay unkan karahayn la hadli karahayn salaami karahayn usoo dhawaan aynaan qorshahaasi mabaynu dhiganba. dadkuna baanigan badan ay wada galeen waa qorshihii ilaahay baa socda laakiin dadaal badan buu baahay kumaynu fikirin weligeen allahen waa ta ugu xanuunka kulule anigoo isla wada calood adag tahay amana la yidhi calooladkaadu ha ooyina oo ha nixina waa ta ugu xanuunka kulul qofkiioo halkaa ka cabaadayo inta meel lagu xidhay laleeyahay dadkaagii ma arki karaysid. bal qof kasta uba waxaad ka fikirtaa halkaa red flaggaas waxaad tirahdaa ma dooni qofkayga inaan arki waayo laakiin waa inaan yareeyo infectionkii waa inaan areadeeni ka yareeyo. qofkaaga ma dhunkan kartid ma salaami kartid uma geli kartid. laga yaabo waa lagu ogolaan karaa haddaanay xoog usii adkayn 5 minutes familyga control u dhow waa laga yaabaa laakiin waxaa lagaaga baqanayaa adigii inay wixii kugu dhacaan oo ma aragtay ay ku taabato. ta communityga waxaan rabay inaan ama masaajidada ama culimada waxaan jeclaan lahaa UK oo dhan inuu qof imaamihi waayo imaamadii iyo maaragtay musheekhdii waxaan arkaya inay yar aamuseen inuu bas TV-ga keliya ta ka hadlo waayo dad baa dadkoogii waayay dad baa dadkoogii ka dhintay. ma rabno inay musheekh badan hadashay wixii handhal garayso laakiin qof keliyata oo communityga ka hadlo oo yiraahdo dadkii la hadlo oo just phone-ka keliyata la hadla NHS la xiriira yiraahdo war dadku markay dhintaan sidee loo aasaya sidee la sameeyo. dadkii confusion badan baa ku jira reerkii uu qofkii ka baxay in loo tago ma laakiin telephone Facebook loo galo la yiraahdo samiriye iimaan oo halkaa laga hadlo more. dadkii kale Afghanistanti hindidii waa laynaga horeeya dadku voluntary bay iswada qoreen meydadkii bay maydhayaan dadkii bay la hadlayaan dhakhaatiirtii bay la hadlayaan NHS bay la soo xidhiidheen. waxa weeyaan inuu imaamka masaajidka West London oo kale iyo kulli ay isku wada tagaan oo yidhaahdaan war waxa dhacay waxa weeyaan qofkii anaa soo arkay qofkii halkaasaa lagu aasayaa familiga qofkaasaa maanta inaga baxay allah u naxariisto ha loo duceeyo reer hebel weeyaan. in xitaa informationka la sheego ma aha waa in maydka u sheego dadka qaar baan jeclayn confidentiality-googa la sheego dadka qaar baa ka dhuumanayo xanuunkan wax kale u haysta war waxa weeyaan dadka qaar baa u sikhrayo dadka kule war waa hargab yaroo wixii igu dhacayo waan fiicnaad. waxa laga yaabaa jirkaaga inuu strong ahaa inuu ma aragtay uu qofka kale ka duwayo wax sahlan ma aha xanuunkani. ilaahayna waxaan ka baryaa inaga qabto markaa ase community ahaan ase musheekh ahaan in la yidhaahdo oo reerihii ama dadkii ay dhibku ku dhacay faamiliyadii ay hidgaraysay dadkii dadkoogii ka dhinteen. waxaa jira hooyooyin aan aada uga naxusin galmaadarka ah kolku qofkii ka xanuunsado hooyadii waxay la gelaysaa haddana qaar kale carruurtii kaga tegaysaa xitaa adigoon reerkii u tagayn oon cid dadkii u tagahayn haddana in lays ogaado oo maanta FaceTime baa jira oo lays FaceTime gareeyo oo wixii aad qofkii u qaban karto shopping yar u geysaya ayeeyo meel joogta ama awowo meel jooga aad wuxuu qabatida. dadka waaweynna waxa fiican in ay guryaha ku jiraan. inan baa waxay weydiisay waxaan ahay keera waxaan ku shaqeeyaa maxay hayday guryahan taga waxaad weydiisataa cidda aad u shaqayso amba company aad u shaqayso inaad wixii aad ku bartay garaynayso oo dhan aad qaadato sanka xidhato gacmaha qaadato apronkaagii qaadato guriga markaad galayso aad is ogaato qofka markaad la hadlayso patientka aad afkaaga bahasha aad ku xidhato markaad guriga kasoo baxdo galaafiska iyo waxoo dhan aad meel iska wada dhigtaan kabacdi markaasi aad companygaagana aad weydiisato wixii uu ma aragtay aad u baahnayd oo dhan ee needka ahaay oo dhan. gurigaaga markaad timaado albaabka markaad kasoo gasho bac samayso bacdaa wuxuu dhan ku wada rid straight away gal maxay haday showerka markaad gasho maydho musqusha iska daba nadiifi dhitoosha way fiican tahay iskaga daba nadiifi deetana mashiinka dharkii ku rid dan markaa familiga la hadal. marka waxa fiican anaguna rool badan baynu leenahay inaynu sogaano inaynu wax badan qabano inaynu wax badan samayno si aanay waxaasi noogu dhicin. ninkii qayrkii loo xiray wadna soo qoyso waxaani joke maaha wax video laga dhiga maaha wax ciyaara maaha. kolkaad aragto family dhan oo ooyaya oo hooyadood ama aabahood ama awowgood ama qofkay ugu jeclaan la yidhi ma arki karaysid taasaa wax wadnahaaga haddaad qof islaama tahay iyo qof gaalaba wadnahaaga dhaqaajinaysa oo lagu yidhi ma taaban kartid oo ma dhunkan kartid oo ma macasalaameyn kartid oo halkaasuu ku dhintay oo xabaashiisa xitaa uma dhowaan kartid. marka inaan ka hadlin wax la gubaayo iyo wax la sameyn ma jirta maydku xaq buu leeyahay xaqiisi baa la marinaya laakiin waxaan ka codsan lahaa communitygeena
iyo ma aragtay tviyada oo dhan inay ka hadlaan maaha waa inuu wax ka hadlo dad medical garanaya ama qof musheekha waxaan u jecelahay inay dadkii dejiyaan oo ay ka sheekeen maydkii halkii la geeyey halkuu maray halkuu qofkii uu tegay la yidhaahdo anaa soo arkay xabaashaasaa lagu aasaya qofkaaba ay naga baxay ilaahay ha u naxariisto haddana familigii lala hadlo iyadoon loo tagahayn laakiin telefoon ama facetime la yidhaahdo samiriya iimaan maxaa u baahantihiin aan idiin qabanaa maxaan kuu samaynaa maxaan idiin karaa waxay noqonaysaa qofkii wuxuu leeyahy ehel waayo ummadii kale oo dhani nhsta ayaa lala xidhiidhayaa la oranaya maxaan u samayn karaa my communitygayga soomaalida oo maxaan u qaban karaa maxaan u samayn karaa marka one imaam kaliyaan u baahana we don't need all dad badan oo isdhex yaaca waxaan u baahana qof kaliyato community oo UK ka oo dhan meeshay doonaysa ha ahaato ka hadlo yidhaa waxayo waxaasaa dhacay waxa la joojiye fake badan oo news baa jira wax badan oo laga hadlaya jira wax qosol laga dhigay baa jira taas halkaasaan kaga baxay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay naga qabto inaga qaboojiyo waxaana aad serious u qaadataan ilaahay baa keenay arrimihii ilaahay weeyaan waxa weeyaan come back to the Islam diinta islaamku waxayna fartay inaan nadiif noqono inaynu ma aragtay guryaheena nadiifino malaa'igtu ma soo gasho baa laynoo sheegay guriga aan nadiif ahayn qofka aan nadiifta ahayn shanta waqti qofka tukadana waxa fiican inuu ilaahay waxaan ka baryayaa aanu kuba ridinba waxa kaloo inoo soo baxay oo anigu idinkula talin lahaa naftaydana kula talinaya inaynu intaynu soo baxno inaga gaarkeena aynu ilaahay barino imagine ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo meeshay doontaba ha joogto oo ilaahay gacmaha kor u taagtay oo guryahooga jooga oo qof kastaba intuu iska soo duubo aynu ilaahay baryayna ilaahay waxaan inuu inaga joojiyo ilaahay inaga qaada dhibka iyo dhibaatada oo aynu dadka faqrada iyo dadka masaakiinta kuwa agoonta kuwa jilicda san la aynu u naxno waa wake up call ilaahay ina siiyey waa yawmal qiyaamihii ifka oo ay ilaahay ina tusay waxani qofna aanu qof la hadlahayn qofna aanu qof u dhawaanahayn marka waxaan aad iyo aad idinka codsanaya hadalkayga inta fiican ka qaata because waqti yar baan haystaa aan idinka aan usoo galay arrimahaasaan usoo galay waxa kaloon rabay inaan ka hadlo galaafiskaasaan rabay inaan idinkala hadlo oo aan ku arkay magaalada maxay hayday markaan anigu aan dhex socdo habeenkii baan shaqo tagaa waxaan arkay galaafiskaasoo dadku ay xidhan yihiin I don't know cidda siisay waa bad practice weeyaan cidda siisay ee tiri galaafiskaa xidha oo suuqa ku socda oo ma aragta tareenada ku raaca dadka qaar baan ku arkay marka waxa weeyaan waxaan kuu sheegaya gacmahaagaas wuxuu criteria gareynaya more problem baad samaynaysaa more disease baad gacmahaagaa ku samaynaysaa annagu markaanu shaqo qabano waxaana loo ogol yahay meesha aan ku qabano inaan iska saaro sidaad xitaa iskaga saarayso halkaa yar baad qabanaysaa markaad taa qabato ta kalena ma taabanaysid halkaasaad farta ka gelinaysaa dabadeed tala sidaasaad oranaysaa meeshii loogu talagalay baad saa ugu ridaysaa laakiin waxaan arkay ummadii oo tareenka ku raacaysa oo ma aragtay tareenka markay raacaan meel kasta ku tagaysa baabuurta ku fuulaysa basaska ku fuulaysa dabadeetana streetka ku daadinaysa we create a lot problem because this gloves waxay sameynayaan halkan bacteria ku sameynayaan because gacantaadii baa ku dhididaysa aad waxa isleedahay waxa ma dhacayso laakiin gacantaadii bay ku dhacaysaa markaad hawl ku qabato hawsha aad ku qabato iska saar markaad iska saartana si yaroo fiican iskaga saar dibadda ha ku tuurin meel kale saa ku qaba hawl baa loo baahan yahay haddaan waayo anigu oon markaan ama guriga soo galo ninana yar baan ku farxashaa creamkaas baan ayaan markasta because soor baa gacmaha xoog baan u maydhaa marka creamka yar baan markasta sitaa anigu wet wipes kaana waan sitaa laakiin wet wipes kaas waxay ku xun tahay marka aad ku marsato meel ha ku tuurin wet wipes kaagana iska sido gacanta ku sido marka isku masax guriga marka timaado maydhida ayaa ka muhiimsan gloveskan aad ku socotaa waa bad practice hal la joojiyo suuqa lagu marayo meelaha lagu tagay shaqaad ku qabanaysaa shaqada markaad ku qabato patient to patient uma tagaysid imika dadkii confused baa ku dhacay qofkii waxa laga yaabaa isku ilooba laakiin dad badan baa suuqa ku socda aan ku arkay anigu West London baan ayaan u shaqo tagaa Hammersmith baan areadaasaan jooga laakiin waxa weeyaan waxaan arkay tareenka markaan raacayo tareenkii ku dhex daasanta streetkii oo taala dadkii oo xidhan oo haysta inaad barto gacantaada eeg dhididka ka dhacaya you make it another bacteria waxay noqotay bahaladan caawo qaar fiican soo qaad baan islahaa laakiin ma soo qaadin waxani waa medical dad baan maqlay inay sameeyeen ama ay criteria gareeyeen waxa looma baahna inaad adigu aad samayso oo ma aragtay qofku markuu sameeyo de waxa soo sameeyo dawladaha soo sameeyo shirkadaha soo sameeyo laga saxaa marka different baa jira dadkuna ma aragtay markay xidhan yihiin aan xidhano imika aan sida u xidho mararka qaarkood
anigaaba iloobaba laakiin waxa weyn waan iska saarnaa halkaasaan qabanaa haddaan qof la hadlahayn qof haddaan la hadlaayo kaliya tan waxaan qaataa haddii aan meeshaasi ka baqanayo qofka aan la hadlaayo qandhuuftiisa ama naqaskiisa ama hadalkiisa inaan ka yar xidho laakiin dadka ku socday suuqa ku maraya anigu umaan bogin ama kamaan helin because you creating more problem bahal baad iska soo iibsatay waxay tahay ma garanaysid medical maaha lama soo jeegaraynin because bahaladan waa lasoo jeegareeyaa bahaladan waxbaa la marinayaa loogu talagalay laakiin bahashan aad iska gashatay bahashii oo dhaxaysay weli hawada lama oran hawadu waa uskag ama waa nijaas ama sun bay leedahay laakiin markaad suuqa socoto iska daawan anu ku oran lahaa ama naqaskaaga halkan ka yar xidh ama ma aragtayay sanka ka neefso anigu inta badan afkaan xidhaa marmar baan iloobaa kuwan iyadoo halkan ay ii saaran tahay oo aanan xidhanin laakiin waxaan idinka codsanayaa idinku bad practice ha samaynina look after yourself qof kastooba qofka kale ilaali qof kastooba qofka kale u naxariiso wixii guriga nadiifta siday tahay gacmihii in la wash gareeyo gacmahaasun baa problem inagu haya gacmihii in la wash gareeyo diinta islaamka kusoo noqo nadaafiyada islaam ma garanaysaa waxa weeyaan malaa'igtu ma soo gashaa layidhi meelaha nadiifta ahayn waxana waxay u baahantuun waa diineen gaalada waxaad arkaysaa waxay oran jireen awel yani I have solution when the problem come in I have solution waxaad arkaysaa cabsi badan ayaa gashay jirkoodii waayo waxaan lama sii diyaar garoobin waxaan lama sii qabanin marka imika qof mayda la sheegay leeyahay meel baa lagu dilay meel baa saas lagu tuuray waxaas ma jirto imagine common sense baa loo baahan yahay waayo mayd kan la maydhayo disease iyo waxbaa laga baqanaya meeshii lagu maydhayay ciddii maydhaysay dharkay xidhanayeen siday u habeynayeen wixii oo dhan baa la diyaarinaya laakiin waxaan idinka baryayaa ummadda Soomaaliyeed meesha doontaan jooga Somaliland jooga Soomaaliya jooga Ethiopia jooga Djibouti jooga meesha doontaan iska daayo waxa la yiri oonad ogeyn iyo wax la sii wado haddii aad u baahan tahay inaad wax daba socoto NHS daba soco wadanka countryga joogto Jarmalka joog Norway joog Spain joog wadanka daba soco waxay falow garanayaan daba soco Somaliland haddaad joogto daba soco meesha lagu soo cararayo oo la leeyahay halka waxba ka dhacay oo dadku shirrug sooranay looma baahno qof kastooba adiga waxa weeyaan adigu responsibility baad haysataa responsibilitygaas waxa weeyaan waxaan isuuna inoogu fidin oo ilaahay inooga joojiyo please take seriously ma markay ku hidgarayso ee lagu yiraahdo qofkaagi ma dhungan kartid oo ma salaami kartid oo ma xabaali kartid oo uma dhawaan kartid that's a touching my heart wata ugu daran ee ugu xanuunka kulul leh aanad qofkaagi u dhawaanin manaynu berbergaraynin oo maynu ka fikirin habeen kaliya ta kamaynu fikirin inaan ku arki waayo oon ku dhunkan waayo oon ku salaami waayo oon bay kugu oran waayo oon ku dul waad ogtihiin cisbitaalada waxaynu ku xidhan jirnay bac weyn baynu ku xidhan jirnay intaasoo kun oo qof baa iman jirtay qof markuu inaga xanuunsado maantana waxa lagu yiri own family kuma arkayaan marka ma waxaad sugaysaa walaalkaabay ku dhacday oo qof islaamay ku dhacday oo qof gaalay ku dhacday markay adiga kugu dhacdo ayaad sugaysaa please waxaan idinka baraya take seriously joog ka saara aan iscaawino aan ilaahay barino aan dib ilaahay ugu noqono aan isweydiino waxani waxay tahay aqalkaaga nadiiftiisa siday tahay iyo wuxuu yahay iyo waxa inaga sii hoo dhan aynu wada nadiifino inaynu is ilaalino oo ma aragtay weight badanna aan idin fuulin ad drink badan cabtaan because energy badan hadaa yeelataan oo sharaab badan cabtaan anigu waliba waxaan idin kula talin lahaa khudradda fruitka habeen aroortii smoothie samaysta iyo isku darsada yogurt iyo smoothie badan khudrad badan cabba iyo khudradda la karsado taa labada khudradood hadaa ka adkaataan oo ma aragtay wax healthy cuntaan hilib badan iyo bariis badan looma baahna laakiin hadaa cunaysan bariiska wax yar oo khafiifa diinta islaamku wax kasta waxa ku tiri khafiif hada midalood waxa lagu yiri middle wax kasta cun hana dhergina waxa weeyaan waayo waxaan ka baqay hadana dadkii weight badan fuula markaan ka soo baxda ay waxaan inaga dhamaado imika waxa la ilaa 6 bilood baa loogu talagalay oo lagu aamiyay uu soconaya waxaan illa sifeeyo wixii la wada ogaado laakiin every 3 weeks waa la jeegaranaya idinkuna every day oo 2 weeks waxa tirahdaan maxay noo kordhay shalay maxaynu ku khaldanay maanta maxaynu ku khaldanahay maxaa maanta gurigeena khaldan qof maan gacmihiisii maydhin arinta kalena waan jeclaa inaan ka hadlo laakiin waqti badan uma hayo imika waa inaan soo afjaro guriyihii baa la iskugu yimi ismaynu aqoonin caruuru iskuul bay tagayeen waalidadu shaqay tagayeen in la isku dulqaato suuratul baqara la dhageysto yaasiinka lagu tuuro quraanka la dhageysto la kala faa'iideysto la kala durko la isku dulqaato waa mamankii ugu fiicnaa ee ay dadku isku dulqaadeen waa ismaynu aqoon caruurtu iskuul bay tagaysay
macalimad yaro ay jecel yihiin bay caruurtu daba soconayeen waxa weeyaan dadkii xitaa familigiiba isbaranaya laakiin aa kala durugtaan isku qaadataan shaydaanku inaga faa'iidaysanin isjeclaano oo insha Allah ilaahay waxaan ka baryaa new people aan noqono markaan ka soo baxno ilaahayna inaga joojiyo waxaan aan jacayl badanna aan kala kulano iyo isku dhawaansho iyo ilaahay naga saaro qabiil iyo wixii xumahii oo dhan ilaahay naga saaro marka waan idin soo duceynayaa annagana noo soo duceeya wixii healthiga ku jira ee frontiga taagan oo dhan noo soo duceeya annaguna waan idin soo duceynaynaa waan jecelahay inaad caawino wadnahayaga ayay taabatay kolkii hore dadka waxay oran jireen qofkaas wuu dhintay laakiin this is waa very hard waa very serious haddiise aynu controllo in infectionkaasi iska controllo oo qof kastaaba yidhaahdo bladeka maydh koobka maydh ha wada cunina qof kastooba gaar u qaado qof kastooba waxaaga yar samayso meel baynu gaadhaynaa marka ilaahay khayr baan idinka baraya ducaan idinkaga tegaya laakiin follow the order imika waxa socdo order please follow the order ismaqla hala kala dambeeyo listeningku waa very important listeningku waa halkii ku gaadheen dadka cadaanka ahi meelo badan iyo waxa weeyaan iyagu dadka ma khasbaan ma dilaan waxba kuma sameeyaan just kaliya waxay ku sheegaan information take it or leave it I hope inaa qaadataan hadalkaygaasi anigoon jeclayn inaan kasoo baxo the my first time kaygi haddana waxa iga keenhaya caring badan baa iga keenhaya waayo ma rabo inay dadkeenu dhintaan ma rabo inay silcaan laakiin waxaan u baahanahay sida dadka kale inaynu strong noqono iscaawino isgarab taagnaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu